kulankan ay isugu yimaadeen gudida nabadgelyada ee degmooyinka caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaha gobolka Murudijeex ayaa waxay isaga xog wareysteen sidii ay wada shaqeyn dhow ay u yeelan lahaayeen gudiyada nabadgelyada ee xaafadaha caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale xafiiska gobolka Murudijeex ugu horeyn xoghayaha gobolka Murudijeex ayaa u mahadnaqay gudida nabadgelyada degmooyinka caasimadda Hargeysa sida hagar la'aanta ee ay ula shaqeeyaan xafiiska gobolka Murudijeex isagoo ka warramay ahmiyadda ay nabadgelyadu u leedahay bulshada gudiga oo aad iyo aad ugu mahadcelinayo iyagoo habeen iyo maalinba shaqeeya waxaan leeyahay shaqadii aad sii wadeen halkii ka sii wada sii balaariya ha ka caajisina waa dalku waa dalkiina qofku haddaanu ammaan haysan ammaan baa inoogu horeeya dad islaam aynahay boqolkiiba boqol ciidina salaad tukan mayso marka ugu yarti masaajid la isugu iman maayo marka ammaanku akhriya dumba ninkii ka shaqeeya waa tasliix bayna naas waa inuu qofku adkeeya geesta kalena taliyaha ciidanka damdamiska Soomaaliland gaashaanle sare Axmed Sawaaxili oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekiyay kaalinta ay ciidanka damdamisku ay kaga jiraan nabadgelyada dalka waa la gurmanaya meesha la maray wadinka wadooyinka maxaa gaadiid baa shaqeynaya oo shidaal baa shaqeynaya markaas loo guri waa gubanaya marka meesha tana xashiish buu noqonaya marka gudiyada waxaan ka baryayaa in aan nagala shaqeysaan bal waxaan xashiishka meesha yaala si loo gurla waxa loo gurlay iyo waxa loo gubayo cid gubaysa waa in wixii la helaa wadooyinka dibadda laga sheekeeyay gudoomiye dabdamisahaan waxa dhibaato haysta wadooyinka marnay Abdillahi Jibriil Gaxnuug Buraale barasaabka gobolka Murudijeex ayaa u soo jeediyay gudiyada nabadgelyooyinka ee xaafadaha gobolka ee xaafadaha degmooyinka caasimadda Hargeysa inay si laabaan hawsha dhinaca nabadgelyada ee ay isku xilqaameen isagoo xusay in ay wax kala qabanayaan wax kasta oo ay uga baahdaan xafiiska gobolka Murudijeex dhaga kalena gudoomiyaha gobolka Murudijeex waxa uu mahadnaqay taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland iyo guud ahaan ciidamada kala duwan ee dalka hawsha haysana halka ka sii laaba waa idin la shaqeynaa وين اسكو عصبان runtii hadii ilaahay inoo aqbalo si wanaagsan baynu wada shaqeyn doonaa hawlo badan oo runtii xogaal ah ka tihiino wadanka amnigiisa ka shaqeysaan baa jira dhalinyarada runtii waa dhib taagan oo aan dareemeynaa dhalinyarada maanta tooshka indhaha kaga qabanayo qofkii markii wax ka qaadaya waxaan u mahadnaqayaa runtii ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dadaal badan sameeya taliyaha booliiska runtii marka wuxuu ku soo kordhiyay in uu difcado imaka tababar ka baxay oo koox socda inuu ku soo daayo suuqyada iyo xaafadaha oo ay gaafureegaan habeenkii waan wada shaqeynaa si wanaagsan bay u shaqeeyaan iyaga oo gaashaaman oo taliyahoodii dhex socdo oo heegana ayay inta la tacaalaya dadka maaragtay meelaha istaagaya ama dhalinyarada meelaha istaagtaagaysa waanu sii dardargelin doonaa inta ka dhimanna waa ku dari doonaa insha Allah waanu isgarab taagi doonaa waanu iswada garab taagi doonaa xagga nabadgelyada inagoo diyaar u insha Allah Abdillahi Jibriil Gaxnuug Buraale barasaabka gobolka Murudijeex waxa uu sidoo kale uu ka hadlay arrimo door ah oo ay ka mid yihiin baabuurta yaryar ee loo yaqaan duqaanta oo uu sheegay in ay fidiyaan dhaqamo ka soo horjeeda diinta iyo sidoo kale dhaqanka suuban ee aynu leenahay halka sidoo kalena uu kula dardaarmay shirkadaha dhinaca leydhka inay xil iska saaraan sidii ay u hagaajin lahaayeen leydhka maadaama ay curanayaan roobabkii gugo halka uu sidoo kalena barasaabka gobolka Murudijeex uu ka hadlay arrimaha taariibta iyo sidoo kale barakacayaasha degan xaafadda Macalin Haruun waxaanu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay wax ka qaban doonaan